حاجة تمدّ ميوزيكا oo waliba daaniga xaggayga kamanka ugu weyn waxaan qabaa miyuusiga Soomaalidu markay dhabta tahay saddex armuurood baad u baahantahay kaman durbaan iyo foori saddexdaa haddaad hesho waxa iyo codkii way dhan tahay marqaankayga lagama xiiso goynayo xagga fanka kaman tumidda markay timaado xudeydii dee waa number 1 aniga xaggayga laakiin dad kale jiro oo amba isaga ka yar amba ku dhow daada laakiin iyaguna meel sare safka hore ku jira Axmed Naaji Saad ayaa kamid ah Umar Duule markuu kaman garaacay ayaa loo naxariistay dee waa joogsanaysa meel joogta badee oo deeyanka ka baxaya iyo sida uu isku xidhay xarkaas waxay ahayd wax la yaab Daawud Ali Masxaf uu kaaga oo hindi haduu kaman markuu fadhiisto tumayo kaaga oo Saalax Qaasim Naaji oo aynu program kan ku furnay kamankiisi ku kamantumo Saciid Harawa waa yani de waa dhiiga istaagayay Faadima Cabdullaahi Mandeeq aniga qalbigayga gashay bari hore Xaliima Khaliif Magool de waxa way dayax Hiba Maxamed oo heesteedii ugu horeysay aan ku bartay ahayd ya heestii jacaylka ahayd naf jacayl haleelay Faadima Qaasim Hilowle markay afka furto oo nooc walba ku qaadayso waa ajiib Caasha Cabdo oo af Soomaali iyo af Soomaali iyo af Carabi afaf badan ku heesaysa qof Soomaali oo la mid yahay ma jirto xagga afafka ku heesayso baxsan oo markay noqoto heesaha wadaninimada marka la qaadayo baxsan cid ka horeysa ma jirto ragga markay timaado xagga codka Umar Duule oo codkiisu uu yahay mid ku dhaqaajinaya Maxamed Salmaan oo dadka Soomaalida inteeda badan ay isku raacayaan inuu yahay waxa la yiri waa boqorkii codka Soomaalida Cabdinuur Allaale waxa uu yahay xaggayga nin ambartay dhawaan 10 sanadood ugu dambeeyay waa reer Djibouti dad fara badan oo kala jiro Cusmaan Axmed Gacanlo Maxamed Gacanlo iyo Maxamed Yuusuf iyo dad caynkaas ayaa jira oo iyagu waqtigoogii markay way dhinteen Allah u naxariistay aad iyo aad u wanaagsan ana waxaan qabaa Maxamed Cabdullaahi Xasan taariikhdiisa marka laga soo gudbo 100 sanadood ugu dambeeyay dad gabayaayo waaweyn waynu ummadda Soomaalidu waylaada qaar laga yaabay inay nool yihiin intooda badanna ay dhimid laakiin waxaan qabaa tima cadde inuu intaas oo dhan ka duwan waayo waqtiga la joogo sida uu uga hadlayo waxay ahayd si cajiib waqtiga soo socda dardaaranka uu dhigayo oo maanta qaarkood aynu arkayno wuxuu ahaa waxaad moodaysaa inuu il saddexaad leeyahay oo mustaqbalka uu ku arkayo cali cilmi afyare gabayadiisa haddaad dhagaysato waxa weeye nin balaaqadiisa iyo sida uu hadlayo iyo sida uu dhigayo aad iyo aad ugu raaxaysanayso Carays Ciise wuxuu lahaa gabayo si gooni ah ayuu u gabi jiray oo aad u qoto dheer oo farsamo miran ah oo iyaduna u gooniya isaga abwaanada dajiya riwaayadaha heesaha amuraha sameeyo oo aad iyo aad u culus Hadraawi oo nool oo maanta la yaqaan baaxadiisa iyo ballaadhkiisa la yaqaan Xasan Sheekh Muumin oo qofka qura ee la igu yiri markaan research ka sameeyay waa abwaanka qura ee laba riwaayadood waa sidii laba buug oo kale laba riwaayadood mar qura qori kara tan qoriye isla markii laba riwaayadood soo dejin kara qof caynkaasi ma jiro musaqaf weyna Xasan Sheekh Muumin waa Xuseen Farax waa mucjisad buu hayso markuu heesto sameeyay riwaayadu sameeyay waxay ahayd classic ayay noqdeen maanta la baridayay Cali Suguule oo caan ah dadka caynkaasi waa abwaanada riwaayadaha iyo heesooyinka ay noo sameeyeen taariikhda Soomaalidana way ku jiraan marka dad la noqdana ummadda Soomaalidu ay ka toosto waxa maanta haystana waa dadka loo baahan yahay in la bareeriyada iyo museumska iyo la dhigo oo dhalinyarada iyo rag iyo dumar carruurtu ay barato wuxuu ku dhashay magaalada Gabiley waxa uu ka soo baxay jaamacada ku yaala dalkaasi Mareykanka oo uu markii dambe ka noqday professor iyo hormood waa siyaasi waa professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa caawa barnaamijka daawadayaal marti inoogu ah professor habeen wanaagsan horta dadka ina daawanaya adduunyada ku nool geeska Afrika iyo adduunyada ballaaran ku nool waxaan rabaa dhammaantoodba inaan u diro salaan islaamnimada ku fadhida iyo qadarin dadka Soomaaliyeed aan soo dirayo iyo sharafkooga ayaan doonayaa inaan ku bilowno sheekada maanta in dhex marayso professor Axmed wareysigeena caawa saddex qaybood ayaynu kala qaadi doonaa saddexda qodob aan caawa ka hadlaynaa mid waa siyaasadda
mid waa shakhsiyadaada midna waa suugaanta Soomaalida iyo jacaylkaad u qabto saddexda qodob ka jeclaan lahayd inaan ku weydiiyo aan ku horeyno أنا waxay la tahay siday u kala horeeyaan waxa weeye de wixii shakhsiya ee aniga igu kooban oo aynu degdeg u sii dhaafno inaynu sii marno aynu ku xigsiino arrimaha suugaanta iyo fanka culayska siyaasadana aynu ugu dambaysiino waa tahay waxaan ku horeyn doonaa arrimaha shakhsiyaadka Axmed Ismaaciil Samatar haddaanad ahaan lahayn maanta yaa jeclayd inaad noqoto way fara badan yihiin dad badan oo tiigsado way fara badan yihiin Soomaali ah aan Soomaali ahayn dadka Soomaalida hooyaday Xalima Cabdullaahi Kaahin way ugu horeysaa dadka oo waxay ahayd qof geesiyada ragga Soomaalida ee igoogu oo dumarka Soomaalida aad iyo aad u rigeystay ka adkeyd oo iska celin jirtay waxay ahayd qof fahmad fara badan leh idoon iskuul iyo waxba gelin waxay ahayd qof daacadnimada taqaana cadaaladda taqaana run sheegidda taqaana marka Xalima Cabdullaahi Kaahin waa ugu horeysaa liiska abahay wuxuu ahaa qof aad looga yaqaan degmada oo ka horeeyay dadkii la daada ahaa 20 30 40 sanadood ka horeeyay oo de Gabiley ahaa qofkii dadka ka dhaadhiciyay in loo baahan yahay iskuul in la dhiso caruurta wax la baro dad badan oo reer Gabileyna ay lahaayeen walayna gaaleyn hadii aynu sidaa yeelno Ismaaciil Samatar awowgii Faarax Wadaad oo aniga awowgii ah oo Quraan ruug ahaa oo dad dhaqay oo la yaqaan xabaashiisa waa la mid Aadan Cabdulla Cusmaan madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya waa qof sharafkiisa iyo kartidiisa iyo daacadnimadiisa maanta taariikhdu ay dhigayso dimuqraadinimadana yaqaanay xukunkana gartay inaanay ahayn wax adigu aad leedahay ee ay tahay amaanad dadku ay ku dhiibteen waqtigeedii markuu yimaanada aad dadkii dib ugu celisay amaanada inta aad joogtana xafiiska aad ku maamusho si danta wadanka iyo ummadda la ilaalinayo Aadan Cabdulla Cusmaan waa liiska ayuu igu jira waxa jira Michael Mariano oo aanan anigu la kulmin oo aabahay xisbigiisa ay ku jiray NUF markii lahaa gobonimada loo soo dadaalayay wuxuu ahaa nin mutacalima oo ilbaxa oo dadka Soomaalida waqtiga jooga safka ugu horeeya ku jira waxaanan anigu ila tahay inuu madaxweyne wadanka ka noqon lahaa hadii aanu de nusqaan loogu tirin inuu diinta islaamka haysan oo nin kristaan ah laakiin dadnimadiisa iyo qarannimadiisa iyo maskaxdiisa ilbax sare ayuu ahaa Michael Mariano dad badan oo caynka Soomaaliya way jiraan adduunyada kalena de way jiraan dad aan aad iyo aad u tilmaanto oo dadka khaasatan ummadayna dhageysanaysa magacyadooda garan mayso laakiin de waa dadka akademiga ee wax qora ee cilmi baaridda yaqaan ee professorada waaweyn oo qaarkood bari hore ay dhinteen ayaa oo magacyadooda halkan aanan u baahnayn inaan ka sheego way dadkeenu garan maayaan ayaa iyaga la fahaantooda aan aad iyo aad u jecelahay nin baa ka nool amba laba dadkaas nin waxa weeye nin Canadian oo la yiraahdo Charles Taylor oo hadda shaqadii ka yar fadhiistay laakiin de cilmiga uu qoray iyo sida uu fikiraya aad iyo aad aniga ay wax badan igu soo kordhisay waa kow nin Mareykana oo magaciisa la yiraahdo Emmanuel Wallerstein oo ah dadka Afrika markii hore bilaabay inuu wax ka dhigo oo uu barto oo taariikhdeeda iyo dhaqaalaheega iyo siyaasadeeda iyo sociology-ga wax badan ka qoro markii dambana noqday de qof aan adiyaabayso adduunyada dhan macnayn kara uu nool yahay wali wax buu qoraa dadka caynkaasina way jiraan Axmed Ismaaciil Samatar cid ka taqaana ma jirto maanta haddaad dhaliilaysa ama aad toosin lahayd maxaad ka toosin lahayd de horta bini aadam oo dhabi waa daciif oo ma dhamin de hadaynu bini aadam nahay ilaahay baadhan aniguna de waxaan ahay wada dadka bini aadamka aan dhamayn kuwa ugu liitaynan kamid ahaa laga yaaba wax badan baa aniga iga dhiman oo hadaan toosin karayo aan toosin imakana aan ku dadaalaa inaan toosiyo maxaa kamida de waxa kamida inaan mararka qaar kood wixii aan jirdiido
markiiba aan sheego oo aan ka ordo oo xagga samirka dadka qaarkii waxay yiraahdaan samirka ayaa kugu yargaabanaya inaad dul qaadato waxoogaa waa loo baahan yahay dadka qaarkii waxay ku oranayaan siyaasad hadaad gashay waxaad u baahan tahay had iyo jeer runtii oo engegan inaanad sheegin ay dadka qaarkii ku leeyeen waxoogaa yara qarqariso oo aad yara madahdo oo aad waxoogaa yara maaragtay duuduudo ayaa loo baahan yahay sidii waranka iyadoo ganan inaanad sii deyn ay dadka qaarkii ku leeyihiin dadka qaarkii waxay ku leeyihiin inaad wadamada ajnabiga ee aan ku noolaaday 40 sanadood iyo inta ka badan inaad dhaqankooga wixii wanaagsan aan ka qaato aad baan ugu baahanahay laakiin inaanan iyagu noqon aanad noqonayd gunta ka ogtahay inaad tahay qof Soomaaliya oo muslina inaad tahay taasuna waa lagama maarmaan dadka qaarkii waxay yiraahdaan faxalnimadaada maxaan ku yiraahayay waxoogaa yara ciriiri ku jirto waad gacan adag tahay dadka qaarkii yiraahdaan inkastoo dee wax ururiska iyo kayd dhigashada inaad xisaabta ku darsato waayo adiguna isma dhisi karaysid dad kalena wax ma tari karaysid haddii aanad wax yareed haysato aanad beeqaamin arrimaha caynkaas ayaa laga yaabaa haddii dee ay ii suurtogeli karaysana dee timihii lagu yaqaanay weynaa markaan yaraa ayaan jeclaan lahaa inay mar kale soo baxaan oo ay soo noqdaan laakiin dee taas ma suurtogeli karayso arrimihii shakhsiyadda halkaasaan kaga gudbinaa waxaynu u gudbinaa qodobkii kale ee suugaanta Soomaalida aad ayaad u jeceshay waad heestaa aad ayaad u gabaydaa bal jacaylkaas halku ka yimi horta dad aan lahayn fan aan lahayn aan lahayn waa dad xagga dhaqanka ka saboola qalbigoogu engegsan yahay maskaxdoodu ay xidhan tahay dadnimadoodana wax badan ay u dhiman tahay waayo fanku waxa weeye waxa soo saara ruuxa bini aadamka soo saara diintu waa caqiidada waxaad rumaysan tahay oo baroosinki nolosha iyo xadaarada fankuna ruuxa bini aadamka iyo maskaxdooda soo saara weeye ee adduunyada lagu fahmo dadka aad la dhaqmaysa ee aad wada degantihiin lagu fahmo wax badan la wadaago weeye waa ruuxii adduunyada weeye fanku dadka taa aan lahayn amba ka taga amba iska baabiyana waxa weeye marka dambe dad dhaqankoogii u baabao oo dadnimadoodii wax badan ay naaqus ka noqoto marka dambena is afgaran waaya waayo dee af Soomaaligu qiimo ma leh haddaanu dhuux lahayn dhuuxuna waa fanka weeye amba gabay ha noqoto suugaanta ha noqoto amba heesa ha noqoto amba buraanbur ha noqoto waa dhuuxa weeye ruuxa dhaqanka suugaantu halkay ka timid jacaylkeegu waxa weeye de horta wax ilaahay kugu abuuro oo maaragtay ruuxaaga ku jiro adigu aan shaqaba ku lahayn oo waxaan u maleynayaa taasi de meel kale ayay ka timid oo anoo yar baan garanayaa oo de arrimaha heesaha iyo gabayada iyo music la tumiyo waxa iska jecel anoo yar 3-4 sanadood waxa daadaydu ay laakiin waxaan markaan aqliyaystay waxaan arkay in ay tahay suugaanta iyo fanku inuu yahay inaad ku cabiri karto waxyaabo sida kale aanad ku cabiri karin amba waxaad qorto aanad ku cabiri karin amba lecture aad soo jeediso aanad ku cabiri karin ee sida qori aad ku cabiri kartaa ya shucuurta waqtiga taagan amba tii taagnaan jirtay amba ta soo socotay mustaqbalka ad ku cabiri kartaa in ay tahay xagga suugaanta iyo fanka oo heesuhu ugu horeeyaan oo gabaygu ku jiro oo ay buraanburku ku jiro oo musiga Soomaaliga ku jiro marka horta halkaas ayay ka timid dabeetana waan ku ababay anigoo radio Hargeysa dhageysanaya ayaan garaadaystay aniga oo maxaan ku raahayay dhageysanaya tima cadde oo gabilay ayaan ku garaadaystay soo aad garanaysay marka halkaas ayay deeta ka bilaabantay sidaas ay dabeetana ilaa maanta qalbigayga iyo maskaxdayda ay aad suugaanta iyo fanka Soomaalida ugu weyn arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha aad baad wax uga qortay arrimaha fanka ama fanka Soomaalida iyaga wax ma ka qortay waan jeclaan lahaa waanan ku tala jiray mudaba inaan wax ka qoro at least book inaan ka qoro oo book waliba yahay taariikhda fanaaniinta waaweyn iyo abwaanada waaweyn taariikhdooda mid walba laga qoro ilaa 10 chapter laga qoro waan muddo badan baan ku tala jiray ilaa imika si ima suurta gali karin oo hawlo kale
ayaa ku jiidanaya laakiin dhowr waan qoray oo adduunyada imika laga akhristo oo af ingiriisi ku qoran inkastoo oo markaan baadhiyay af Soomaali aan ku baadhnay waraysiga aan qofka ka qaaday oo af Soomaali ah laakiin wixii waxaan u tarjumaa af ingiriisi si adduunyadu ay u barato oo Australia ilaa Canada ilaa Japan baa laga akhristaa iyo inta u dhaxaysa waxa ugu horeeyay waxa weeye oon hore loo sameyn waraysi dheer oo aan ka qaaday Ahmed Ismaaciil Xuseen Xudaydi aabihii kamanka sida loo tumo alaaba kalena uu sameeyaa heesaha uu sameeyaa laakiin de waxa weeye legend xagga de taariikhda kamanka waa cajiib weeye oo waa albaab fure ayuu noqday marka waxaan ka qaaday interview dheer waraysi dheer intaan London ugu tagay markii horena Mareykan aan keenay jaamacadeeda isaga iyo Faaduma Qaasin iyo Hiba Maxamed iyo Cabdinuur Alaaliyo inay banaan ay soo bandhigaan fanka Soomaalida jaamacadeeda iyo dhowr boqol oo qof ay meel weyn jaamacadu ay leedahay masraxa ay ku soo bandhigaan waan keenay 2004 laakiin isaga gooni baan u waraystay maqaalo dheer baan ka qoray oo taariikhdiisa iyo de fanku sidoo yahay sidoo u soo galay ciduu ka bartay oo Cabdullaahi Qarshi qofkii isaga baray ee ugu horeeyay arkay kamantuma iyo de sida uu yaqaano marka Xudaydi taariikhdiisa iyo kamanka sidoo u tumo iyo farsamadiisa iyo magaciisa waan ka qoray adduunyada laga akhristaa waa maqaalo dheer arrimaha fanka Soomaalida sida loo ururiyana waan ka qoray iyadana oo gabadh dhawaan Allah u naxariistay dhimatay ayaan ka qoray oo Marian la yiraaho oo Canada deganaan jirtay Marian dhawaan bay dhimatay muddo imika waxaan 2-3 sanadood laga joogin ayay si mootanayd laakiin waxay ururisay wala library soo wax la mid ah Soomaali kuma jiro ayay ururisay Ariyad baynanta magaceega naanisteeda loo oran jiray Marian Umar Ali marka iyadana waan ka qoray waqaalo dheer oo ay ka hadlayso de fanaaniinta iyo abwaanada iyo riwaayadaha waxa soo dhan ay ka hadlayso wixii ay ururisana de maanta waa kayd umada Soomaalida u yaala Professor Ahmed Ismaaciil Samatar waxa tahay in ragii asaasay xisbiga Hiil Qaran in hormoodkana uu ahaa xisbigii iyo hawshiisii halkeed ku ogtahay de Hiil Qaran de xamar doorashadii halka ka dhacday wixii naga qabsaday oo cidna la fahamta aan weynay ayaa aniga shakhsiyan in qof shakhsiyan igu dhalisay inaan ka soo noqdo arintaas waatan xisbigii marka ka baxay laakiin Hiil Qaran uu nool yahay aad buu nool yahay waa xisbiga qura ee wadanka ka jira Soomaaliya koonfur waxaan ku leeyahay xisbiga qura ee xarun kule magaalada Muqdisho dad baa ka shaqeeya budget buu leeyahay ilaa $50,000 sanadkii ku baxda dadkii ku jiray ee u ahaa dhuuxa way jiraan dadkii membershipka ku lahaa ee xisbiga soo galay way jiraan marka Hiil Qaran wuu nool yahay wuu shaqaynayaa dadka ku jiraana dadka Soomaalida ugu wanaagsan ayay ka mid yihiin hadday wax ka jiraan arrimaha aad sheegtay xisbigu muxuu Soomaalida uga gadmi waayay nasiib darro weyn wuxuu uga gadmi waayay aniga sida ay la tahay waxa weeye laba amuurood ayaa maanta siyaasadda Soomaalida naafeeyay marka xisbiga Hiil Qaran oo kale intaan u dhaqaaqinba lugaha ka goynay midi waxa weeye siyaasaddii Soomaalida oo qabiilnimo foolxuni ay gashay oo de wasakh anu waxaan u bixiyay waa sewage waa bulaacadii ayay noqotay taasi waa mid qabiilku waa bulaacad wey wasakhaysan oo ku nijaasaynayo taa Soomaali siyaasadeedii dhuuxay kaga jirtaa talabaadna waxa weeye hunguri foolxun hunguri foolxun oo siyaasadii ay noqotay hadduu wadankii gubanayo tan kama lihiya anigu codka aan ku siiyo lacag isi oo waliba de lacag xadaafade ay noqotay hunguri amba dibadda ha laga soo qaado ama wadanka gudihiisa waxa yar ee taalaha noqotay hunguri iyo qabiil marka isku ka biiraan waa nacdashi Ilaahay way anu tayaan qaba wax ku hagaagayana ma jiro
waxa intaa u soo raacay aqoon darro fara badan oo wadanka taala jaahilnimo wadanka taala laakiin labadaas ayaa ugu horeeyay hiil qaran wuxuu uga gadmi waayo marka de labadaas ka hor yimid aniga sida ila egta doorashadii ayaad ka qayb gasheen oo hiil qaran u ka qayb galay ma isleedahay waad ku degdegteen oo waad ku qaldanteen doorashada inaad ka qayb gashaan dana dad ka egto waa inaan qaldamay way suurtageli kartaa oo de kow waxaan ku qaldanay inaynaan hiil qaran anu iyo aniga oo ahaa candidatekii in waqti ballaaran oo campaign lagu galo aanaan isa siin aniga magacayga waxaa la soo saaray 3 bilood 2 bilood iyo bar horteed ayaa la soo saaray 2 bilood iyo bar horteed doorasho tartankayga haddaad gelayso ma hadde waa waqti gaaban wey waa inaad sanad iyo bar haysataa oo dibadda iyo wadanka gudihiisa meelshaad gaari kartaba aad ka hadli kartaa campaign wax la yidhaha baa jira taasi waan ku qaldanay waqtigaa gaaban waxaan ku qaldanay dhanna wanaagga iyaga ka ahayd xisbiga hiil qaran iyo aniga dhanna dee markii la dhex dhigay hungurigii foosha xumaaya siyaasadeed ee xamar yaalay in anagu aanu diidnay lacag inaan bixino oo wixii iib gasho aan diidnay oon ku tashanay inaanu ummadda ka dhaadhicinay iyo dadkii baarlamaanka ku jira wax dooranayay annagu waxaanu iibinaynaa qaran wanaagiisa siyaasad wanaagsan hoggaan karti leh waxaasaan iibinaynaa oon wadnaa laakiin lacag ma bixinayno corruption ma bixinayno waayo dee corruption lamana dagaalami kartid haddaad corruption ku soo gasho oo maantaba waa taa muuqata dee qofkii corruption ku soo galaa ee cod iibsadaa durba waa taa muuqata dee maxaan ku rahayay natiijadeedii waxay ku dhammaanaysay waa kaa oo corruption first marka dee albaabkaad ka soo gashana waa corruption again taasina wayna naafaysa saddexaad laga yaabo inaan ku qaldanayna waxa weeye iyada oo xisbiga lafahaantiisu resourceska uu haysto ummadii Soomaalidu ay noo soo gurman weyday marka waxa yare aanu isku maamulayna ay tahay wax dhowr qof ka yimid ay tahay marka saboolnimo ayaa heshana xisbigii hiil qaran markaad sabool tahay meel hungurigu weyn yahay inaad joogtana waa albaabku wuu xidhmaya arrimahaasaan qabsaday siyaasadda Soomaaliya mar walba madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isqabtaa maxaa arintaa keena maxaa arintaa sababa waxa iskeenay anigu taa horena waan uga hadlay waxa iskeena dhowr amuurood mid waxa weeye marka dawladda la dhisayo madaxda la dooranayo xitaa anagu madax baanu ayaan kamid ah dadkii u ordayay cidna huftay oo na hurguftay oo qof walba eegay wuxuu gala iyo wuxuu guday si buuxda u eegtaa may jirin waxa lagu soconayay xoogaa yaroo laaluush la bixiyo iyo qabiil la sheegto intaasay awsho ahayd marka la isma baranayo dadka candidateska waa in la bartaa inta aan codka la dhiiban dee ummadiina uma tegi karto wadankii uu xidhan yahay oo xamar baan laga bixi karin marka 270ka soo doontay amba u jooga inay maalaan meesha ay waxay doontaan ka qaataan intooda badan dad xariiri way ku jiraan laakiin inteeda badan dad caynkaas u yimid baad oo u soo yimid meesha waxay ka furan karaan wadanka inay ka furtaan tayadoon la isbaran baa madax la noqonaya oo umadu aanay aqoon te markiiba uuskiiba kugu soo baxay aqoon darro ha noqoto corruption ha noqoto qabiilnimo ha noqoto waxaas kugu soo baxay ayaa ku soo baxay waa ku hadee maanta aad haysato marka waxa weeye qofka madaxweynaha haddii aanu vision lahayn haddii aanu lahayn maxaan ku raahayay dan guud oo adag oo qalbiga kaga jirta haddii aanu lahayn criteria waxa saansaanta lagu garto ra'iisul wasaaraha uu sameysanayo dawladda la dhisaya say tahay ee ay tahay uun amba qabiilka isku miisaan iyo hebel baan saaxiib la ahay waxa haday tahay de marka ugu horeysa shaqadii horta way xidhmaysa oo dadkani kartidii mala way xidhmaysa xaafadihii waanu ku heshiinay inaanu wada qaadano waxana madaxay isku dhufanayaan marka waxa weeye distoor yaala oo dhab ah oo dadku ay ku dhaqmayaan oo kala xuduudka u kala sameeyo qof walba shaqadiisu waxay tahayna ma jiro haduu jirana cidi ma eegayso waa la iska jiidaya markiiba qofka madaxweynaha wuxuu haystaa wadanka inuu isagu leeyahay oo kolba ka nasiib ka nasaar ayuu haystaa xasana taasi maanta kama maqna kuwii horena kama maqnayn ra'iisul wasaarayaashana damac baa kaga jira in iyaguna aniga wadanka xukumo ay noqoto
marka waxa weeye xisbina kama soo wada bixin dadku haday meel ka soo wada baxaan oo soo sheekaystaan oo isog yihiin ummaduna ay ogtahay de wala sii garan marka waxa weeye waxa la iskaga hor imanaya waxa soo dhan baa jira ugu dambeyntiina waxa weeye looma joogo loomana jeedo wadankani yaa maamuli karo oo sidaan u wadi karnaa looma jeedo mar hadii doorashadii laga baxay waxa weeye yaa qaadanaya intan yaa lagaga tagaya waxaasa lagu jira de marka waxa weeye gudaafada la fadhanayo ayay noqonaysaa dawladnimadii lagu sheegay leadershipkii de waxa dhibaatadu marka dambe uu hanti ay u noqonaysaa dadkii Soomaaliyeed 600 kun ee jooga dadaab ee halka ku go'doomay 20 sanadood joogay wali cidi u tagin waxay noqonaysaa dadka xamar iyo magaalooyinka kala jooga ee maatida ah IDPs ka la yiraahdo internally displaced people on cidi ka waran ayay noqonaysaa boqolkiiba 75 ka dhalinyaradu shaqada aan haysan ayay noqonaysaa oo la iska iloobo waxa lagu mashquulayaa arinta yar villa Soomaaliya yaa caawa fadhiya yaa caawa la hadlay ayaa caawa wax la siiyay waxaas lagu mareysanaya tawaata halka dadka Soomaalida dhigtay baarlamaanka Soomaaliya wax badan oo dhaliila ayaad ka sheegtay ama ha saxsanaato ama ha qaldanaato maxaad isaga casishay dhaliisha aad sheegayso aad halka uga sixi weeyay waxaan uga sixi waayay iyadoo oo ay suurto gali lahayd inaan joogo oo magaalada aan joogo waxaan uga sixi waayay dhowr amuurood oo joogi waay kow de mar haduu markabkani buuxo sida u dhaqaaqay adiga oo dooniyar wata markab ma joojin karaysid waa inaad heshaa gaashaan hadii xisbigiiba lagula soo gali way baarlamaanka dadka ku jira xisbiga waxa kaga jira ma qof amba laba kaga jira hadii u badato hil qaran gaashaan garab ma lihid sidana waa loo socdaa daadka socda way marka inaad adigu ambade ku cadhowdo oo waxaasun aad la qasato iyo inaad maxaan ku rahay noqoto qof kalidii dabaysha socota la hadlaya oo cidi dhageysanay ayay aniga ila soo gudboonaatay marka waxaan isiri horta arintani tuad wax ka qaban karto kalida ma soo aad garmaysto haddaan si joogi lahayn waxa laga yaabaa inaan ku kadeedmi lahaa laga yaabaa oo marka damana lagu yiraahdo de war waa ninkii kalidii meesha ka qaylinayay uu wanaagsan yahay laakiin waa kalidii qayliye in lagu yiraahdo ayaa suurta gali lahayd marka waxaan isiri horta taadib uga soo noqo sidaas ayaan dabadeeto baarlamaankii uga tagay siyaasadii Soomaaliya xagga Soomaaliland baad imika u wareegtay siyaasaddu meel walba dhibtu way taalaa labada siyaasadoodna waa isku mid baan filayaa miyana dhibaatooyinkii oo kale halkan kala kulmi karin aan waxaan qabaa inay kala duwan yihiin horta aniga waligay Somaliland qalbigayga way ku jirto wax sanadkan iyo dhowrkii bilood u dambeeyay waxay soo galeen ma hadii laga murmayo taana de taariikhda dhigayso hadaladii aan duubay 20 sanadood way yaalaan waligay Ilaahay waxaan jeclaa Somaliland inay noqoto meel badhaadha waxay haysato wax ku darsarta Ilaahay si hagaajiyo dadkaygu dadaalka ay si badiyaan taas anigu waligay iga dhaadhacsaneed waan ku hadlay 10 sanadood 15 sanadood muddo laga joogo halkaan iska khilaafsanay Somaliland dadkayga iyo madaxdeeda waxa weeye arinta in gooni loo baxay in kale oo anigu de wali aanan ka qoosan in la heli karo leadership Soomaaliyeed oo xamar fadhido arinta fahamta qadiyadana degdeg u gasho oo war cusub keenta waxaan xasan kula talinay way anigu markaan ahaa candidate kana baarlamaanka hortiisa waan ka sheegay qadiyada Somaliland ta ugu horeysa inay noqonayso ee aan guda galo oo wax Somaliland dadkeega iyo umadeedu ay tabanayso fahma qarannimadii wadajirkii Soomaaliduna waxay u baahan tahay fahma deetana halka shaqadeedii laga galo way suurta gali kari weyd marka waxa igu dhacday dadkii Somaliland iyo umadii aan ka yimid ee intaan lahaa joogadaan hay laakiin de waxaan wixii ka iibiyo aan waayay halkan inaan markaa de iyagii ku noqdo oo wixii aan la qaban karayo la qabto doodina way iga heleen iyagu Somaliland dadkayga doodii way iga heleen laakiin dadka xukuumaya Somaliland elite-ka Somaliland iyo elite-ka koonfur Soomaaliya waxa tidii malaha ma kala duwan oo xisaabtu meel bay ugu wada xidhantahay amba qabiileysnaato amba musuqmaasuq ahaato kulay dad Soomaaliyeed dan badan bay iska shaabahan oo de Somaliland dadkaygu cirka kama soo dhicin laakiin waxaan indhahayga ku soo arkay socodkii aan tagay ee aan soo maray indhahayga aan ku soo arkay waxa ay qabsadeen Somaliland dadkayga iyo madaxdeedu inaanay qabsan kareen hadii aanay ka duwaneyn siyaasadda taalla magaalada Muqdisho hadaanay ka duwaneyn
dee nabadgelyaa taallo waaniga waddanka maray bil in ku dhow wareegayay weligay ma arag Somaliland qof qori sita oo bannaanka jooga oo aan askari ahayn ma arag xamarna kharashka ugu weyn ay nahaystay dadka iyaga campaign-ka ku jira anigu aan ka mid ahaa waxay ahayd sidaad u helayso dadku ilaaliyo iyo kharashka aad ku bixinayso marka waa la kala duwan yahay waxana marxaati ka Somaliland inay ka duwan tahay elite-keegu Soomaaliya elite-keega koonfur inay ka duwan tahay dee lama qabsan kareen waxan dee haddii aan iyagu waxan ka qayb kaga jirin lama qabsan kareen reer barigi waxbay tabanayaan galbeedkiina qayla ka soo yeeraysaa qabyaaladdu waxaad moodaa meel walba inay taallo maxay ku kala duwan yihiin markaas dee waxa lagu kala duwan yahay taa waxbaa ka jira laakiin waxa lagu kala duwan yahay waxaan soo arkay oo wax la iga sheekeeyay ma waan guda galay waan soo urgufay waxa jira dawlad wax la yiraahdo dhulka ka shaqaynaysa ayaa jira waxaan ugu tagay magaalooyin yar oo dadku ay hayaan rasiidkii cashuurta ay ku bixiyeen sanadkii tagay ayaa hayaan cashuurna dadka bixiya waa dad ogol dawladda ay leeyihiin inay wax ku leeyihiin haddii kale cashuurta way diidi lahayn waa daabiyada yaryar oo ka fog Hargeysa ayaan ku soo arkay bari iyo galbeed nabadgelyadaas taala dawlad shaqaynayso oo xafiisyo leh ayaan arkay oo bileysku meel walba joogo meeshaanu tagnaba dad dawladda ka wakiila oo raadkaygiya DC barasaab askarta dadka madaxa karaanigi cashuuraha hayay waxaas oo dhammaan dhakhtar iyaanu ugu tagnay ya oo isku xidhan laakiin way jirtaa karti gaabani way jirtaa oo Somaliland maanta halka ay joogto inay hadaanay dhaafin oo hore uga dhaqaaqin waliba degdeg aanay uga dhaqaaqin oo waxa la qabtay inta la ilaaliyo aan kor loo sii qaadin waxa la qabtay ba khaayis noqonay soo aad garanaysid marka karti way Somaliland way u baahan tahay karti cusub waliba oo gaarsiisa halkan meel aad uga sareysa amba ha noqoto dhismaha waddanka gudihiisa xagga dhaqaalaha iyo maxaan ku dhahay caafimaadka iyo education-ka iyo wixii dad ay ku badhaadhayeen soo dhis adduunyada kalena u macneeya qadiyadda Somaliland waxay tahay karti halkaasi aad bay u gaabanta soo madgan dadka bariga joogaana Somaliland barigayga ku noolina waxa weeye dadkii asalka ahaa ee Somaliland bay ka mid yihiin Soomaalinimada iyo dadnimaduna aad bay ugu dheertaan oo in badan baan ka aqaana laakiin de iyagu waxbay tabanayaan waxa weeye cadaalad darro aad u fara badan ayay leeyihiin ciidamada dul jooga khasab baa la doonayaa inaanu Somaliland ka mid noqono lama khasab wax laguma keeni karo ciidan meel haystaana ma keeni karo dad ogol waa inay dadka niyadooda ka soo goodaa inay waddankan la wada leeyahay marka leadershipka Somaliland maanta taagan iyo kuwa soo socdaaba haddii aanay keenin siyaasad dadka degan Somaliland barigeega in loo soo bandhigo wax soo jiita oo niyadooda soo galiyo Somaliland inay tahay waddankoogii la wada leeyahay oo qayb libaax ku leeyihiin haddaan la helin dee waxay noqonaysaa marka inay Somaliland soo ururto oo soo gudho ayay noqonaysaa galbeedka arrimaheegu ma sida uma sii weynaanu sidaan qabo dawladda qayb weyn bay ku leeyihiin madax bay ka ahaayeen 8 sanadood laakiin waqtigan la joogo waxay ku leeyihiin xaggii dhaqaalaha iyo siyaasadda waxoogaa baad moodaa in loo badiyay ya gobolada dhexe ee Somaliland loo badiyay hadda ogow taa wax laga yaabaa inay wax ka jiraan marka statistics-ka leego laakiin dad badan oo ku nool gobolada dhexe ee Somaliland Berbera Burco markaad eegto ilaa Ceergaabo dhulkaad eegto dad badan Hargeysa gudaheega ya oo aad arkayso iyaga la fahaantoodu dareen badan inay haysato shaqo la'aan maxaan ku dhahaye caafimaad darro iskuul la'aan waxa soo dhameena haystaan oo ay cabanayaan in hore socodkii uu gaabinayo laakiin anigu waxaan leeyahay Somaliland marka la isku qiyaaso waxay qabsatay ilaa maanta iyo waxa ka dhiman oo wax badan baa ka dhiman aad qabato miisaanka labada markaad saarto waxay qabsatay ayaa ka weyn waxa maxaan ku raahayay xagaldaaca iyo dhibaatooyinka haysta iyo socod gaabinta laakiin waa halka ay ka soo galayso leadershipku inuu yimaado oo marka waxa la haystana ee wanaagsanna si qurxiyo dhalaaliyo oo meedo oo meel adduunyada tusa waxaan gaabanay amba qabiil meel kaga jiro amba maxaan ku raahayay qoondaro iyo karti darro ay kaga jirtana laga baxo miidid Somaliland inta la soo saaro la yiraaho dhaqaajiya waddanka waa maanta challenge ku hor yaala Somaliland way waxaad soo booqatay xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa mar aad ka hadashay halkaas waxaad sheegtay dadka degan xaafaddaas inay dadkii asalka ahaa yihiin dad baa arrinta aqoonsaday
maxaad isleedahay way arrintaa u qoonsadeen dadka qoonsanaya waxay u qoonsanayaan horta aanu inaan daami tagay oo dadkii madaxda u ahaa magaalada qaybteedaas way ii yimaadeen aad baanu u sheekaysanay imika waanu isbaranay socodkan dambe aan tegayo haddii la yiraahdo December waan u tagi doonaa ballan baa naga dhaxeeya dad wanaagsan weeyi oo dadkaygiya waxa loo qoonsanayaa de waxa weeyi laba mid uun qof jaahil oo garanayn asalnimadu waxay tahay iyo qof ay ku jirto wasakhdii anigu laandheero ree hebel baan ahay dadkana waa Tumaal iyo Midgaan iyo Yibir iyo waxa galay soo garmayst oo de waa jaahilnimadii wasakhdeeda ugu weynay taas weey dad walaalahayood wada dhalateen inaad sidaa ku tidaado de waa sidaa de madowga lagu leeyahay Mareykan baan deganahay dadka cunsuriyiinta ah ee la deganahay cadaankii wax kastaba qabso inta doonta wanaagsanow anu nin cad baan ahay qof madow baad madowduna waa adoon ay ku oranayaan waa qof markaa de aad naaqus oo qofka sidaa u hadlaya anu saadaan degdeg u macneeyo arrintan asalka laba amuurood baan ku xiray waana dood furan qofkii doonaya doodda inuu ka qayb galo laba amuurood baan ku xiray mid weyna horta meesha ilaahay dadkan uu ku abuuray waa dad Soomaaliya oo Somaliland u dhashay jidka oo taariikhda la noqonaya laakiin waxa ka sii weyn taas oo uga jeeda asalnimada waxa weeye laba amuurood bay ummadi ka dhisantaa oo xooggeega aw yaala haday baraarayso iyo haday soconayso mid waxa weeye farsamo gacanta ah ya technical know how farsamo gacanta oo hadhowtana industrial lagu dhiso laakiin de waa inuu ay ka bilaabantaa halka oo sida wax loo sameeyo farsamada gacanta waa inay jirtaa dadka Soomaaliyeed ee daami degan iyo inta lamida waa number 1 bay xagga ka yihiin beer la Soomaali ma qoran karto anu Gabiley baan ka yimid dadka sameeynaya maxaan ku raahayay irfida lagu qodayo beero waxay ahaayeen dadka Gabiley degan ee maxaan ku raahayay ka yimid ummadda Soomaalida ee Somaliland ee Gabiley degan ee lagu la yiraahdo waa Tumaalada for example waa farsamada gacanta arinta labaad ee ummadi ay isku macnaysay adduunyada kaga qayb gashaan waxa weeyi fanka xadaarada fanka soo damaad gal labada markaad eegto midna dhaqanka ay tahay xagga fanka iyo xadaarada ay tahay midna aad eegto ay tahay xagga farsamada labadaas midna waa mental xaggi maskaxda iyo gacanta ya midna waxa weeye xaggi ruuxa iyo maxaan ku raahay imagination soo garmayst labada markaad eegto labada dadka ummad bal adduunyada eeg labada hadaad ka saarto dhaqankaad ka saarto oo cidlu noqonaya labada dadkii leeyna adduunyo machines laho industrial way dhisi ya de xadaarad maxaan ku rahay laga arka taariikhdooda iyo quruxdooda iyo arimaha ka dhiman sida uga wada hadlayaan waxay ka soo baxaysaa waa masraxa iyo heesaha iyo gabayada iyo riwaayadaha iyo waxaas ka soo baxaysaa buraanburka ka soo baxaysa labada amuurood dadka daami degan iyo dadka lamid ah ee Somaliland degan ama Soomaalida balaaran ba ya ee lagu tiriyo anu waxaan qabaa inay number 1 yihiin asalkii sidaas ayaanu macneeyay ugu dambaystii ma laga yaabaa rajadii Soomaali weyn in ay mar labaad soo noqoto oo Soomaaliya iyo Somaliland ay mar kale isku soo noqdaan labada waxa su'aasha ka jawaabi kara iyagoo wada fadhiya dadka Somaliland wakiilka waqtiga la wada fadhiyo ka ah iyo dadka calankii weynaa ee Soomaali weyn gacanta ku haya wali labadaas inay soo fariistaan labada un baa jawaabteeda keeni kara ha iyo maya iyagu baa keeni kara anigu maanta intaan ku darsanaya waa inta waxa weeye dadka Somaliland laba amuurood baa la gudban wadankooga inay dhistaan oo hawshaasi ay dedejiyaan dhismaha wadanka dhaqaale siyaasadeeda nolosha bulshada wadooyinka leertriga caafimaad in la dhiso oo la dedejiyo waliba waayo baahida way weynta waa waajibka number 1 priority for Somaliland way adduunyadana inay ka raadsadaan sida loo fahmayo qadiyadooda oo adduunyada u timaadona way u baahan yihiin waana degdeg talabaad ee Somaliland hortaala dadka madaxda oo ay jiilka soo socda waxa weeye albaabkaasi de inuu banaanaado ummadii Soomaalida in la wada galo sheeka dhab ah oo hadii la isku soo noqonayo sida la isku soo noqonayo laga baaraandego oo mugdi ku jirin oo xisaabtii hore aanay soo noqonayn ya ina qaladay aanay soo noqonayn in albaabkaasi uu furnaado oo dhagto ay furnaato laakiin maanta mashquul waxay ku yihiin ayna u baahan yihiin mashquul ku noqdaan inay hawshooda
wataaniya waddankooga siday u dhisayaan dadkii calankii weynaa gacanta weli ku haya oo dee xamar intooda badani fadhiyaan madaxna ay ku leeyihiin anu waxaan ku idhi calankaas amba iska dhiga ha beenaynina iska dhiga oo museumka hala dhigo ya ama maqsin kale ha lagu xidho oo hadhow lagala soo baxayo haddii kale calankaasi wuxuu u baahan yahay heel buu u baahan yahay heelkaasina waa inuu noqdaa vision cusub karti cusub oo wasakhdii bulaacadii siyaasadii hore Soomaaliya qabiileysnayd ee musuq maasuqa ahayd ee masaakiinta xoolahooga dhexda laga qaadanayay waxa in ee karti darrada la aaminay waxa soo dhan in laga baxo calanku taas iyo heelkaas u baahay vision cusub oo adduunyo cusub dadka maskaxdooda galiya dadkii dhaqaajinayay banaanka ay u soo baxaan deetana la arko markhaatigeegii maalin walba la arko taa haddii la helo dooda calankaaba dee dadka la hadlay isagoo halkaa taagan baa la garan waayo suuradiisa la garanay maanta calanka Soomaalidu waxa loo wax laga ordo buu noqdo laakiin hadda isaga hadlay hadii dadku sida ay dadka haya sida u dhaqmaan markay taa sida u dhaqmaan de Somaliland dadka madaxda oo ee wadankaas dadka degani albaabka furan de waa la isdegaysan markaa waxay ku xiran tahay details laakiin rajada ugu weyn hadii rajo soo noqonayso wadankii la isku soo celiyo waxa weeye dadka calankii weynaa gacanta ku haya Muqdisho jooga xisaab waxan ka duwan oo tii hore aan ahayn oo qabiil iyo saqajaannimo lacagta yare meesha laga keenayo la qaadanayo iyo waxa waa in laga baxayo wax kale la keenaa oo calankani uu qalmo amba calanka la iska dhigo aad iyo aad baad mahadsantahay Professor Axmed Ismaaciil Samatar waad mahadsantahay thank you very much daawadayaal waxaan intaa ku soo gabagabaynaa barnaamijkii waraysigii gaarka ahaa ee la yeelanay Professor Axmed Ismaaciil Samatar tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa nabadgelyo